nasiibku waa hibo uu alla baxsho taasun si joogto ah aan loo helaynin qof walbana uusan helaynin marka laga hadlayo nasiibka waxaa jira dadyow badan uu saaciday nasiibka balse maanta waxaan soo qaadanaynaa shakhsigii ugu nasiibka badnaa ma isweydiisay in uu jiro qof sidan u nasiib badan السلام عليكم kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta intaan u gudagulin barnaamijkeena maanta fadlan nagu soo biir oo subscribe saar oo like garay si ay noogu noqoto dhiirigelin waa mahadsantahay Frank Salek waa 8 sano jir u dhashay dalka Croatia sanadkii 1962 isaga oo safar ah oo tareen saaran ayuu la kulmay shilkaas oo sababay buur baraf ah oo ku soo duntay tareenka taas oo keentay tareenkii inuu ka dhaco wadadii uu ku socday waxa uuna ku dhacay webi meesha ku yaal dhammaan dadkii saarnaa tareenka waa ay geeriyoodeen marka laga reebo Frank oo soo gaaray dhaawac fudud kana soo gaaray lugaha sidaasna kaga badbaaday shaqadii soo wajahday noloshiisa balse sanad kadib 1963 ayuu go'aansaday markii uu horeysay noloshiisa in uu raaco diyaaradii markii ay kacday oo ay hawada gashay waxa ka ciladoobay matoorka dadkii saarnaa diyaaradda waxa soo wajahay cabsi iyo walwal balse Frank waxa u furantay daaqadii dhinaciisa jirtay waxa uuna go'aansaday inuu ka boodo diyaaradda sidaas ayuu kaga soo booday diyaaradda balse nasiib wanaag kuma uusan dhicin dhulka ee waxa uu ku dhacay meel ay qashin ka buuxaan sidaas ayuu ku badbaaday intaas oo kaliya kuma ka dhacdooyinkii soo wajahay Frank 3 sano kadib 1966 ayuu soo raacay gaari bas ah asigoon u sii jeeday goobtiisa shaqada balse baskii uu saarnaa waxa uu ka soo dhacay buundada asigoona ku dhacay webi buundada hoosteed ku yaal 4 qof oo ka tirsan dadkii saarnaa baska way ay geeriyoodeen asigana waa uu ka badbaaday muddo kadib asiga oo wata gaarigiisa qaaska ah oo sii jeeday goobtiisa shaqada ayaa si lama filaan ah waxa dab uga dhashay gaarigii uu watay Frankana waxa uu ka booday gaarigiisa wax yar kadibna waxa qarxay gaarigii sidaas ayuu ku badbaaday 2005 waxa soo martay dhacdo ka duwan dhacdooyinkii uu hore la soo kulmay waxa uu ku guuleystay baqtiyo nasiib lacag dhan $1 milyan iyo $100,000 sidaas ayuu ku noqday milyaneer qof walba waa uu geeriyoonayaa balse waxa uu geeriyoonayaa waqtigii Alla u qoray Frankana Alla uma qorin in uu ku geeriyoodo dhacdooyinkaas intaan ayuu ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh